tiirarkan muddo waxay ka caaganayeen in garbaduub loogu xiro gacan ku dhiglayaal ciidamada qalabka sida u tirsan laakiin si nolosha ay u jirto waxa uu noqotay in loo xisho badqabka adoomaha Allah karaameeyay afartaba ciidamada qalabka sida ay ka tirsan yihiin waxayna bareer u dileen saaxiibo kale oo difaac ugu jiray ilaalinta diinta dadka iyo dalka maxamed nuur sheekh warre hodan ayuu ku dilay axmed cali cabdi oo ay booliiska ka wada tirsanayeen March 17keedii 2022 cabdirasaaq axmed mukhtaar xamar jajab ayuu ku dilay Mustafa Xuseen Xasan September 19keedii 2022 booliiska ay ka wada tirsanayeen Bukhari Awil Maxamuud Cabdi doolo ayuu ku dilay Cabdiraxmaan Axmed Dalaxow Juun 6deedii 2022 ay ka wada tirsanayeen Ali Maxamuud Xuseen tuulada Cali Baro oo shabeellada hoose ka tirsan ayuu ku dilay Abshir Carab oo Cali Maaj 6deedii 2022 militariga ay ka wada tirsanayeen maanta ayaa laga tuuray culayska xadkii qasaasta sida toogashada kadib uu sheegay warbaahinta Maxamed Cabdullaahi Khaliif xeelaliye xigeenka ciidamada qalabka sida maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bishii 2023 waxa lagu wada fuliyay xukunkii qisaasta ahaa 1 dable bool Cabdirasaaq Axmed Mukhtaar 2 alif la bool Maxamed Nuur Sheekh Warre 3 2 alif la xoog Cali Maxamuud Xuseen 4 dable nisa Bukhari Awil Maxamuud Cabdi wabillahi tawfiiq fagaarahan waxa joogay General Liibaan Cali Yaro iyo Cornel Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaasha heerarka maxkamadda ciidamada qalabka sida fulinta toogashada waxa gutay cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ee Haram Cad iyo koofiya casta xooga dalka Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka tiirka iskool Buliisiya